kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaalkii 24 saac ee lasoo dhaafay ka socday magaalada Boosaaso isla markaana isku farasaareen ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan BSF oo ay Mareykanku tababaraan isla markaana ah ciidamo si aad u qalabaysan oo Mareykanku u tababaray la dagaalanka argagixisada iyo kooxaha ka ganacsada daroogada iyo burcadbadeeda kana howlgala gobolada bari oo ay joogaan maleeshiyaad hubeysan dagaalkaas oo ay iskaga soo horjeedeen ciidamada daraawiishta Puntland oo uu hogaaminayo saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Puntland ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wararkii ugu dambeeyay iyo meesha xaaladdu maraydo iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay sidii aad wada ogtihiinba 48 saac ee lasoo dhaafay waxaa dagaal xoogan ka socday magaalada Boosaaso dagaalka u dhaxeeyay ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan BSF oo Mareykanku tababaro iyo ciidanka daraawiishta Puntland oo dagaalkaasi uu salka ku hayay sidii awoodda magaalada Boosaaso ay gacanta ugu geli lahayd Siciid Dani oo doonaya inuu halkaa ka qaato 13 kursi oo kuwa federaalka ah si uu asagu ugu soo baxo doorashada madaxweynaha Soomaaliya maadaama uu murashax yahay iyo sargaalka hogaamid Asad Diyaano oo ah sargaalka ugu sareeya ciidamada BSF oo awoodda magaalada Boosaaso isku haystay 48 saac ee lasoo dhaafay ayaa labada dhinacba ay kala adkaan waayeen waxaana maamulka Puntland oo hogaamiyay Siciid Cabdullaahi Dani ku qasbanaaday inuu dagaalka joojiyo isla markaana uu sheegay in loo baahan yahay xabad joojin degdeg ah si uusan dhiig kale u sii daadan maadaama awood lagu maqooni waayay BSF oo la soo baxday dagaal aad u culus iyo hub waaweyn iyo qoryaha diiradda leh oo meelaha fogfog wax looga toogto ciidamada uu hogaaminayo madaxweynaha Puntland ama ka amar qaata ayaa la sheegay inay goobaha dagaalka iskaga carareen waxaana wararku sheegayaan hub xalay ay soo gelisay Puntland magaalada Boosaaso inuu gacanta u galay ciidamada PSF isla markaana Siciid Dani uu ku qasbanaaday inuu ciidamadiisa ku amro inay joojiyaan dagaalka walow maalmihii hore oo lasoo dhaafay ay odayaasha iyo simada Puntland ay soo saareen in maamulka iyo wixii wareejinta Asad Diyaano ay ku dhacdo si nabada isla markaana loo hogaansamo amarka madaxweynaha iyadoo dhanka kale hubka iyo saanada ay haystaan BSF uu leeyahay Asad Diyaano warar aan helay ayaa xaqiijinaya in Siciid Cabdullaahi Dani uu amray ciidamada daraawiishta Puntland inay xabadda joojiyaan isla markaana ku laabtaan xiriyahooda halka BSF to ay markii horeba sheegtay inay difaac ku jirtay oo iyada la soo weeraray dad xog ogaala oo la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay in uu dagaalku bilowday kadib markii ciidamada daraawiishta Puntland oo ka amar qaadanaya Siciid Cabdullaahi Dani ay soristaag ku sameeyeen baabuurta gaashaaman iyo kuwa kale oo ay leeyihiin cabdibilayaasha ah ee BSF oo maraya magaalada Boosaaso dhexdeeda dhanka kale waxaa jira xarig loo geystay askar ka mid ah BSF oo ay xireen ciidamada daraawiishta Puntland halkaas oo dagaalku ka qarxay ilaa ay hadda waxaa magaalada Boosaaso gacanta ku haya ciidamada BSF oo inta badan magaalada Boosaaso hadda maamulaya iyadoo meelo kooban ay ka joogaan ciidamada daraawiishta Puntland waxaana la sheegay in saraakiisha hogaaminaysay ay dagaalka ku laabteen hadda xiriyahooda halkaasna ay saldhigyo ka samaysteen waxaana socda waan u dhaxaysa saraakiisha iyo dawladda Puntland oo ay dhexdhexaadinayaan odayaasha iyo simada Puntland haddii arrintan lagu guuleysto ayaa waxay noqon doontaa in dagaalkii la soo afjaray halka maamulka Puntland uu ku guuldareystay damaciisii ahaa inuu la wareego magaalada Boosaaso oo la boobi lahaa kuraasta taala oo 16 kursi ah fadlan daawade haddii aad ku tixan ama Galaanka Media aad ku cusub tahay waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalkeena share garayso bay subscribe-na noo saarto barteena YouTube-ka sidii noogu soo biiraan dadka adigoo kale ay wanaagsan waad ku mahadsan tahay daawashadaada iyo sida wanaagsan ee noola socoto